السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرديد شرفت للسود هذا ومالين كل قروح بدن يا 10 آد ونكسن وحرجين يا دمان تنين عافمد وضغطان سلام إذا الحمد لله I am back حقاك هذا ما أنت هلكا وحينوها يا 10 آد وقيمة بدن وحانا برندون إن شاء الله هدو الله يدمو learn new words from adjectives and adverbs أريا وصبان حكا برندونا أريو ينك adjective اللي رهدو anagoo markaas adjective ereyga ka bedeleyno oo adverb u bedeleyno tusaale ahaan waxaan dhinac ku haysanaa erey adjective ah then ereygaas adjective ka ah waxaan u bedeleynaa adverb. Are we together? That's good. Waxaa marka muhiim ah marka ugu horeysa inaad ogaato adjective maxaa la yiraahdaa, adverbs maxaa la yiraahdaa. Adjective waxaa la yiraahdaa oo ereyada loo adeegsado sifa bixin, erey faahfaahin bay waxay ka baxshaan noun-ka. Okay? Adverb-kuna waxay faahfaahin ka bixiyaan verbka, ficilkay faahfaahin ka bixiyaan, yani sida ficilku u dhacayo bay muujiyaan. Are we together? That's good. Inta muuqaalka aan u guda gelin waxaan ka codsanayaa muuqaalkeena noo like gareysaan, taageeritaankiina aad inoo muujisaan. Inta had iyo jeer la garab istaagan waxaad leenahay aad ba mahadsantihiin. Ardayda cusub ee nagu soo birto waxaan leeyahay soo dhawaada, halkan 10 aad iyo aad u qiimo badan baad ka heli doontaan waqtigan oo kale maalin walba insha Allah hadda lidmo. Hagaag ereyga ugu horeeya waxa uu leeyahay beautiful. Beautiful. Adverbkiisa muxuu noqonayaa beautifully. 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 Are we together? That's good. So beautiful qurxoon, yani wax qurxoon. Tusaale ahaan haddaad tirahdo she is so beautiful, ayada aad bay u qurxoon tahay. Beautifullyna si qurxoon. Okay? Beautifully si qurxoon. Waxay markaas ku tusinaysaa erey verb ah ba faahfaahin laga bixinaya. Tusaale ahaan beautiful anagoo jumlo gelinayno waxaan dhihi karnaa she dresses beautifully. She dresses beautifully. Ayadu waxay u labisataa si qurxoon. Are we together? So beautifully markuu muxuu faahfaahin ka bixinaya dresses oo verb ah. Are we together? Midan waa sifa waa adjective beautiful. She is so beautiful. Ayadu waa qurxoon tahay. Tanna she dresses beautifully. Ayada waxay u labisataa si qurxoon. So ereyada badan adjective-ka ah marka aad adjective aad ka bedelayso aad adverb u bedelayso badanaa gadaal waxaa loogu daraa l iyo y. So erey haddaa aragto l iyo y ku dhamaada say u badan tahay waa erey adverb ah. Erey waxaa jiraan adjective ah oo l iyo y ku dhamaato laakiin waa erey yar oo kooban. Laakiin badanaa haddaa aragto erey ku dhamaanayo l iyo y then ereygaas ogow waa erey adverb ah. Hagaag ereyga xigo bad. Bad waa xun, wax xun waa. Okay? Waa sifo. Okay, adverbkiisa muxuu noqonayaa badly. Badly. Tusaale ahaan haddaad dhaho hey your computer is so bad. Computerkaaga waa xun yahay. Okay? So waxaan sifo ka bixiyay computer oo noun ah. Then badly waa xun, si xun waa. Okay? Tusaale ahaan haddaad dhaho the teacher hit me badly. Macalinka si xun buu wax iigu dhuftay ama ii garaacay. Okay? Hit wuxuu yahay verb. So badly waa si xun. Bad xun, badly si xun. Erey xigo busy. Busy mashquul. Okay? Busily si mashquul ah. Okay? Busily si mashquul ah. Erey xigo deep. Deep waa wax hoos u dheer. Okay? Deep waa hoos wax u dheer waxaad u adeegsan kartaa deep. Okay? Deeply oo adverb ah. Deeply si hoose. Okay? Yeah, deeply si hoos waxaa leedahay deeply. Erey xigo nice. Nice. Nice waa erey adjective ah. Adverbkiisa muxuu noqonayaa nicely. Nicely l iyo y gadaal lagu daraysa. Nice wanaagsan. Okay? Nicely si wanaagsan. Are we together? That's good. Erey xigo active. Active firfircoon. Actively si firfircoon. Active waxaa adeegsan kartaa qofku markuu nashaad yahay aad u firfircoon. Active yahay hey she is so active. Hayda active waa. Okay? Actively marka adverb baa ka dhigto muxuu noqonayaa si firfircoon. Okay? Erey xigo silent. Silent. Okay? Adverbkiisa muxuu noqonayaa silently. Silently. Silent aamusan. Silently si aamusan. Are you together? Yeah, that's good. So inshallah isku daya at least laba jumlo oo kale in ereydan inta ka bixiso
aad jumla ageliso commentiga nagula wadaagto then insha Allah waa in ka saxay are we together okay ereyga xigo distant muxuu noqonayaa adverb-kiisa distant fog wax markuu fog yahay dheerto halada distant okay yeah distantly si fog okay distantly waa erey adverb ah wuxuu noqonayaa macnihiisu si fog okay erey xigo brave okay geesi okay yeah geesinimo hada brave okay adverb-kiisa muxuu noqonayaa bravely si geesi ah okay yeah bravely si geesi ah si geesinimo ku jirto are we together that's good erey xigo clear okay adverb-kiisa muxuu noqonayaa clear waxa waaye waa cad wax bayaan ah oo cad okay bayaan ah oo maartay mugdi ama waxba kaaga jirin shucaaca kaaga clear your voice is so clear codkaagu waa aad buu clear u yahay waa cad yahay waa fasiix ah okay clearly si cad si bayaan ah okay ya clearly ereyga xigo correct okay adverb-kiisa muxuu noqonayaa correct waa adjective okay correctly waa adverb okay ereyada adverb ku badan ly bay ku noqon correct sax waa wax saxan okay wax sax ah correctly si sax ah correctly waa si sax ah okay hey she did the homework correctly homework waa samaysay si saxan okay si sax ah erey xigo angry adverb-kiisa muxuu noqonayaa angrily okay angry waa adjective angrily waa adverb okay angry careesan angrily si careesan salahan ayuu jumla gelin soo dhigi kartaa he approached me angrily asaga wuxuu ii soo wajahay si careesan angrily si careesan erey xigo regular okay regular ereygiisa adverb muxuu noqonayaa regularly okay regular waa joogto ah tusaalahaan oo kale dadka ku daawadaan oo kale waxaa dhigi kartaa they are regular viewers waa dad si joogto ah ay daawadaan okay regularly si joogto ah okay regular waa wax soo laalaabta waxaa yidhahdaa regular are you together regular udas ay ahaan oo dhaqsan regularly si joogto ah are you together that's good ereyga xigo easy asta z aan oo dhaqsan easy ereygiisa muxuu noqonayaa adverb-ka ah easy fudud easily si fudud are you together so insha Allah waxaan rajeynayaa ereyadaas aadka u wanaagsan annagoo ka bedeleyno adjective oo u bedeleyno adverb hadda aragtay ereyadaas sidaasa adverb loogu bedelo waa erey aad iyo aad u qurxoon waxaan rajeynayaa wax badan inaad ka faa'iideen insha Allah hal isku day at least labo kamid ah inaad jumla geliso isku daygu aad u wanaagsan yahay weliga ha ka cabsan luqadda hadaad baranayso inaad wax isku daydo damo aad wax isku day asameyso damo aad geesi noqonayso waxna aad baranayso insha Allah so inta wanaagsan oo commentiga badana jumlooyinka sameeyaan waa arkaa inta kale insha Allah isku soo daydo commentiga inuu la wadaago insha Allah doolan muuqaalka ha iloobin inaad noo like gareysaan sina share garee insha Allah doolan muuqaalka inta ka kulmi doono khayr badan baan ku ogahay sidaas iyo nabadgelyo